sheekadii Axmed Madoobe waa la soo gabagabeeyey. Dowladda Soomaaliya waxay qabatay maxaabiistii ugu badnaa oo istaafka Axmed Madoobe ahaa. Dagaal saakay lagu hungoobay. Wararkii ugu dambeeyey iminkadan dagaalka ugu cuslaa ayaa ka socda duleedka Raas Kamboni. Inkastoo ciidanka Jubbaland ay qabsadeen ceelbiyood ay cabayeen ciidanka militariga Soomaaliya, laakiin maxaabiistii ugu badneed ayaa laga furtay. Bal ila daawo mid ka mid ah muuqaalada ugu daran ee laga soo duubay qaar ka mid ah maxaabiista. sagaal sano ninkaan la shaqaynaya aniga oo isku lafta iyo isku nolosha iyo isku dhiigaan ahayn oo intuu gaari igu soo guray deegaan aqoonin iyo dul keenay deegaankiina aan dadna iyo dan la ka garanayn maxay la tahay laba rag baatiini muuqaalkaas oo dhammaystiran ayaan kula wadaagi doonaa. maxaabiistii ugu badneed oo boqolaala ayaa laga qabtay Axmed Madoobe. ciidanka dowladda ayaa gacanta ku dhigay. muuqaalka Laksar Shargare wixii aragtay qaybta hoose commentiga. dagaalkii ugu cuslaa ayaa iminkadan aan kula hadlay waxa uu ka socdaa duleedka Raas Kamboni, waxaana la soo warinayaa in dagaalku yahay mid aad u culus. maxaabiistii ugu badneed ayaa la kala qabsaday. dagaalku meeshii ugu xumeed ayuu marayaa. gurmadyo ayaa la kala dalbanayaa. Axmed Madoobena waxaa la sheegay in shabaab uu gurmad weydiisanayo oo asi iyo shabaab ay dhinac ka soo jeesanayaan. ciidanka dowladdu ay la dagaalamayaan. wararkii ugu dambeeyey taliyaasha ciidamada oo halkaas ku sugan war ka soo saaray xaaladda guud iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa. macluumaad dheeraad ayaan ku siinayaa oo barnaamijkan ku saabsan, balse intaan barnaamijkeena si toos u guda gelin bal ila daawo mid ka mid ah muuqaaladii ugu dambeeyey ee laga soo duubay maxaabiistii laga qabtay Axmed Madoobe ee Jubbaland ku sugan. sagaal sano ninkaan la shaqaynaya aniga oo isku lafta iyo isku nolosha iyo isku dhiigaan ahayn oo intuu gaari igu soo guray deegaan aqoonin iyo dul keenay deegaankiina aan dadna iyo dan la ka garanayn maxay la tahay laba rag baatiini hadda dhex taagan oo kaleeto waay saaka hadaad ku dhimato maxaad ku dhiman lahayd ehelulaar inaan ahay baan sheegi lahaa saakii haddaan ku dhiman waayo waxaad ku soo dushay anoo jiifo anoo fadhiya salaad subax baan saaka tukaday waxaan leeyahay ilaahayow ilmo islaamadaal oo xarig xalaal ah ku dhashay ma baqayaan cid wax kuu dhibay ma jirto maya wiilashii qabanayay niman yaryar oo fudud baa igu soo toosoo dhalinyaro ah qori faala halkaa igu dhacay halkaa leefkaana waa lagu dhuftay. waxaan ku wareeray adigu dadkaan leynaysaa mise dowladda Soomaaliya ee macaanka bandayda la sheegayo oo aan lahaa qorigaan afgarkaad u geysa miyaatiin intaa markaa arigu nin oday oo madow boodo sidii intiina la soo wado dhabbada soo socda macal shacabka aan soo dhex marayna Soomaaliya waa israacday. waxaan diyaar u nahay naftanada iyo maalkanada dowladda ku yeeray. maxaad diyaar u tihiin naftanada iyo maalkanada dowladda Soomaaliyeed yaa ku yeeray qaranka Soomaaliyeed. aad baa u mahadsantihiin oo hataa aan lahayn. waa kuwaas maxaabiistii Axmed Madoobe laga soo qabtay. istaafkiisa bal arag duruufta ka muuqato, bal arag diifta ka muuqato, bal arag sida u yaalaan. bal Axmed Madoobe muxuu kasbayaa, muxuu tabcayaa 14 sano ciidankaas hogaaminayay oo isagu istaaf u ahaayeen oo macnaha ku hayay deegaanada Jubbaland gaar ahaan Kismaayo. maantana sidaas ay u yaalaan. ciidanka dowladda ayaa gacanta ku haya. waa lagu wadaa in loo soo qaado magaalada Muqdisho. dhaawacyada qaarna waxaa lagu dabiibayaa sida la sheegay magaalada caasimadda Muqdisho oo dowladda Soomaaliya ayaa damaanad qaaday. ciidamo xoog leh ayaa goordhow dowladda Soomaaliya waxay ku xoojinaysaa oo ay geysay ciidankii hore u joogay Raas Kamboni. diyaaradaha dagaalka ayaa ciidamo ka qaaday Muqdisho waxaana ay geeyeen Raas Kamboni. ciidanka Raas Kamboni ku sugan hadda waxay gaarayaan 10,000 oo askari. sidoo kale 4 askari oo ciidanka Axmed Madoobe ahaa ayaa nolosha lagu qabtay. sida hadda arkayseen 4 askari ayaa warbaahinta ka soo muuqday. isgaarsiinta ciidanka dowladda ee dhanka Raas Kamboni ayaa si fiican hawada ugu soo laabatay iyadoo oo saacado ka horna ay jarneed oo hawada ay ka maqneed. taasina waxay keentay in ciidanku ay dib ugu soo laabtaan isgaarsiintuna ay helaan si xoogay iyo macluumaad loo helo. garoonka Raas Kamboni waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. dowladda ayaa furun dagaalo culus waxay ka furaysaa goobo kale oo Axmed Madoobe looga soo horjeedo. 40 askari ee ciidanka laga qabtana iminkadan waxaa lagu wadaa in loo soo daabulo magaalada Muqdisho. 37 askari oo dhaawaca ayaa Axmed Madoobe iyo maleeshiyaadkiisa ay ka qaateen goobta dagaalku ay ka dhacday. waxaana iminka lagu dabiibayaa dhaawaca isbitaalka la yiraahdo Kismaayo General Hospital oo ku yaala magaalada Kismaayo. isgaarsiinta ciidanka dowladdu way soo celiyeen, jawigana way xakameeyeen. ciidankii weerarka soo qaaday ee Axmed Madoobe ka amar qaadanayeen dib ay u laabteen. waxaa la soo warinayaa
in xaaladdu hadda ay degan tahay oo ay suuragal tahayba in dagaalka ciidamada dowladdu ay mar kale sii qaadaan oo ay weeraraan oo ay weeraradooduna ku qaadaan meelo kale oo muhiima tan waxay abuuraysaa walaac weyn oo ku aadan qaybo badan oo ka mid ah hadda goobaha la isku haysto fursad kale ayay mar kale u abuuraysaa dhinacyada tani oo ah tallaabo muhiim ah oo ay dowladda federaalka Soomaaliya u qaadayso Jubbaland war ay ka soo saartay dagaalka maanta way ka hadashay oo waxa ay leedahay guulo ay ka sheegatay iyadoo wasiirka ku-xigeenka amniga ugu hadlay waxa uu isagoo ka soo hormuuqday warbaahinta uu yiri dowladda Soomaaliya daroonta maanta loo adeegsaday dowladda ayaa iska la shisheeyay waana soo bandhigi doonaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland sidaas sidoo kale aadan axmed wasiir ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay dagaalkii maanta inay u adeegsatay diyaarado daroon ah oo ay ka amar qaadanayeen dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidamadooda ay isdifaaceen isla markaana ay jab culus gaarsiiyeen ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku soo duulay gobolka Jubbada Hoose dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan dagaal xaqdarro ah in lagula soo qaaday Jubbalandna waa isdifaacaysaa waana la jabiyey ayuu sii raacay waxa kale oo intaasi uu ku sii daray in ay isa soo dhiibeen ilaa 42 askari oo ka tirsan ciidanka Jubbaland laakiin dowladda Soomaaliya waa ay beenisay wararkaas sababtoo ah ciidanka gorgor ma ahan ciidan si sahlan isku dhiibi kara waa ciidan tababaran oo u diyaarsan inay isdifaacaan waa mid ka mid ah ciidamada ugu halista badan oo ay Soomaaliya leeyihiin mana aha ciidan maanta isdhiibi kara ama loo maleeyo inay isdhiibayaan fursadna uma haystaan sababtoo ah ciidanka waa loogu talagalay inay dagaalamaan oo ay iska dhiciyaan cadowga iyo cid walba oo ay u arkaan in cadow uu ku yahay Soomaaliya ciidankan maanta dagaal culus ayay galeen waxaan la dagaalamay gorgor iyo haramcad waa labada ciidan ee sida gaarka u tababaran oo ay Turkigu tababareen hub iyo sanad military ay siiyeen dhaqaalahooda ay bixiyaan Axmed Madoobe hadda meeshii ayuu cagta saaray iyo wadadii lagu soo qaban lahaa sababtoo ah waxa uu amray inuu dhiig daato waxa uu amray in la weeraro ciidan dowladeed dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inuu dhaxmaray al-shabaab fariisimo ay leeyihiin oo sidaas ku weerar dowladda goobaha ciidanka Jubbaland ee Axmed Madoobe ka amar qaatay soo mareen waa goobaha al-shabaab ay ka tirinayeen oo ay gacanta ku hayeen isla markaana Axmed Madoobe al-shabaab ayuu gacan saar leeyahay la heshiiyay una ogolaaday in ciidankii isaga uu watay dhaxmaraan oo ay dowladdu weeraraan tan ayaa ka mid ah waxyaabaha dowladda federaalka Soomaaliya ay sida rasmiga uga eedeysay Axmed Madoobe oo lagu haya cadeentooda sababtoo ah ciidanka ayaa soo maray bara control oo shabaab ay leeyihiin oo ay si toos ah soo dhaxmareen laakiin Axmed Madoobe hadda ayay ugu daran tahay oo waxa uu la kulmaya cawaaqib wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxay sheegtay in Axmed Madoobe aan looga hari doonin arinta hadda uu sameeyay oo in shabaab uu soo dhaxmaray dowladda Soomaaliyana markan uu shabaab u adeegsanayo taasna waxay dowladda Soomaaliya sheegtay inay tahay dembi weyn oo aan loo cafi doonin Axmed Madoobe oo aan looga hari doonin hadda dowladda Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in dagaalku uu sii ballaariso ilaa Kismaayo ilaa Buula Xaaji ilaa deegaano kale ilaa furmo kale oo muhiim u ah dowladda Soomaaliya waxay rabtaa inay isbedel weyn ku sameyso dhinacyada maadaama Axmed Madoobe uu soo go'aansaday inuu la dagaalamo dowladdii oo si shabaab camal u dagaalamo jabhad camal u dagaalamo xasan sheekh maxamuud diris xamsa ayaa hadda raadinaya qorshe muhiim ah oo ninka looga adkaanayo haddii ciidanka Jubbaland ee Maleeshiyada ee ka amar qaatay Axmed Madoobe laga adkaadana Axmed waa ku daayay waana la soo qabanaya waxaana uu maraya ciqaabta weerarka ciidanka dowladda uu ku qaaday la shaqeynta al-shabaab iyo dambiyadii hore ee maxkamadda ay ku soo ogtay waana halis weyn haddii gacanta lagu dhigo ma haysta garab shisheeye sababtoo ah Ethiopiankii hadda ayaa la soo afmeeraya Kenya kol hore ayaa albaabadeeda laga soo xiray Axmed Madoobe meel cidla ayuu soo istaagaya markan isaga oo aanu haysan wax garab ah ayuu rabaa inuu la dagaalamo dowladda waxaan hadda uu garab ka raadsaday al-shabaab markii uu ka waayay Kenya iyo Ethiopia oo uu garab al-shabaab u doontay dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ciqaabta la weydiin doono oo la marsiin doono wararka ku soo kordha dagaaladan daqiiqad ayaan kula wadaagi doonaa muuqaalkeena Laxar share garay haddii aad nagu cusubtahay janaalkeena subscribe dhoo gobolka fur haddii aad hore nala joogtana muuqaalka Laxar aragtidaada qaybta hoose comment inoogu reeb tan iyo qaybteena kale nabadgelyo